السلام عليكم آد بنو السلام يا عليك جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. أخيارتا يا أصحابتا كل يقرأ لنا في موبايل بانك استعماليا رجينيا إن أنا wax dhibaatay sababin waxaan ahay waxa weeyaan wax bartay sidoo kale waxaan ahay bare inta waxa ay raacdaa in barnaamijyadan khuseeya deegaanka aan u ahay qof ka shaqeeya oo waxa weeyaan baalki u amba baxay muddadii ugu dambeysay 5 sano ugu dambeeyay haddii aan tobigayga si fiican u daraaseeyo waxay tahay waa dhibaatooyinka haysta biodiversity laakiin waa biodiversity-ga kaliya waxa weeyaan baalki wixii ama noqonaya wixii deegaaneed ama ha noqdaan dhir ama ha noqdaan calaf xoolaad ama ha noqdaan kuwa dawo aan u isticmaalno ama ha noqdaan waxa weeyaan kuwa kaleeto deegaan qurxin iyo bilcin inoo leh iyo xalalka ugu suurtagalsan ee maanta la joogo ee lagu badbaadin kara ama lagu soo celin karo marka koowaad haddaynu si fiican u faaqino geeska Afrika ama wadanka Soomaaliya cimilo ahaan waxa badanaa lagu qiyaasaa waa arid iyo semi arid waana mid iska qalalan laakiin se wuxuu ka mid yahay waa qayb wadamada ugu qiimaha badan leh ama Horn of Africa ka mid yahay meelaha ugu wanaagsan ee lagu tiriyo inay biodiversity-ga yihiin xaddi waxa weeyaan barwaaqaysan oo waxa weeyaan baalkii creature iyadoo sida ay tahay ama ha noqoto waxa weeyaan wixii daaqsinka ahaa boqolkiiba 80 baan oran karnaa nolosheena dadka baadiyuhu iyo nolosha kaleba waxay ku xidhan tahay waa xoolaha ama ha noqoto dhul daaqsimeed ama ha noqoto waxa weeyaan manfaci bini'aadanka ama ha noqoto waxa weeyaan badii ama ha noqoto waxa weeyaan dhirtii kaleete manfacay noo lahayd ee ka mid ahayd beeyadu xabagta waxaas oo dhan waxaynu nahay dad qani ku ah dhinaca wax soo saarkana waxaan ogsoonahay goboladoo dhan kama wada sidne gobolada ugu barwaaqaysan markaynu ka hadlayno Soomaaliya kaliya waa labada webi laakiin Soomaaliya oo dhan waxaan ka hadlaynaa general shanta Soomaaliyeedna dhulka ugu hodansan waa dhulka webiyadu ay maraan iyo dhulka u dhow waxa weeyaan biyaha iyo barwaaqo soorka haddaba markaynu eegno dhirta aynu Soomaali ahaan haysano culture marka xataa dib aad ugu noqoto dhaqanka gobay kasteeto iyo tix kasteeto iyo murti kasteeto oo eegto boqolkiiba 90 waxay ka hadashaa waa dhir manfaceega iyo muunadeeda xataa haddii gobay maanta soo qaadato ama hadal sarbeeb oo la doonayo waxa weeye in meel lagu aado geed bay tilmaamaan ama shay bay manfaciisa tilmaamayaan oo waxay uga soocan waxyaalihii kaleeto dhirtaas ama ka helaan ama qaraaq ha u noqoto ama dhismaha u gashay ama cunto ha u noqoto ama waxa weeye dawo ha u isticmaalaan ama calaf xoolaad ha u noqoto ama si kaleetaba ha u adeegsadaan waa wax naftoodu ay ku tiirsan tahay oo lama quraan waa noloshooda iyo naftooda haddaba dhirtaas iyo waxaas oo dhan muddadan dambeeto waxa jira marka laga yimaado waqtigii dawladdu ay waxa weeyaan inaga burburtay iyo wixii ka dambeeyay hoos u dhac aad u weyn sidoo qorayay buugii Axmed Barkhalde la soo saaray 1990kii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay daabacday qaybta botany and rangeland wuxuu shanta Soomaaliyeed buugu ka qoray wuxuu ku soo ururiyay ilaa in ka badan 5,000 oo geed oo species inay waanay ay jiraan waxa ka daba qaadatay Oxford oo aad u sii tifatirtay 1990kii way ka soo dhintay tiradii markaa waxay yimaadeen 4,000 iyo waxay yimaadeen 4,135 haddana waxa ka sii dambeysay Oxford oo hay'ada ayaa yadna 1900 iyo waxa weeye 1994 ilaa 2000 bay yadna review dib ugu sameysay oo wax fara badan ay waxa weeyaan modification ku haysta yadna haddana intii bay ka soo koobtay waxay tilmaamay waxay istaagsan yihiin 5,000 iska dhaafay 3,000 bay istaagsan yihiin waxa sababay hoos u dhaca inta la keenayna waa dhulkii oo waxa weeye markii hore daaqsin ahaayo reeguuraagu dadku isku gudbayeen ayaa waxa yimid overgrazing in xoolaheena weli nasiina kuma jiraan socod bay ku jiraan
socodkii xoolihii ku jiray ayaa goobihii ay daaqayeen bay ka bateen tirintii xoolaha haddana waxaa timiday waa maxay isticmaalkii dhuxushiiba waxay nagu noqotay dhibaato aad u weyn oo lafdhabarkeedii aad u saameynaysa oo maantadanba kolay politically gali mayna markaynu eegno Kismaayo arrimaha ugu waaweyn maanta manfaca ay ku qabaan Amazon oo maalin dhibaato daraasad aan ka sameeynay waxay caddeynaysaa boqolkiiba 75 in ay isku bedeleen dad commercial oo ka ganacsada dhuxushaasoo loo gudbiyo wadamada Carabta oo kaymihii baa la jaray oo waxa weeyaan dhulkii dihinaa oo dhan baa waxa weeyaan gacanteedii ka sii baxay waxa yimid sidoo kale isbedel cimilada timid isbedelka cimilada oo sababtay inay biyo yaraan ay yimaadaan inay abaaro iska soo dabaraataan taasina waxay sii yareysay dhulkii markaa guuday marka horeetaba waxa weeyaan baalkii si naturaliya u dihinaa waxa sidoo kale arrintaa ka sii waxa weeyaan badatay arrintan urbanizationka in meel walba iska tuuleysmato meel walba magaalo iska socoto maalin dhaweytolo oo tagnay xagan Burco ayaa waxa jiray laba tuulo baan tagnay labadii tuulo waxa isku jiraan 7 kilomitir kadib markii xogteedii aan odayaashii dadka isweydiinay waxa noo sheegay tuulada ku xigtay in la burburiyo 1935 Ingiriiskuna uu xeerar u dhigay kamid ahayd labada tuulo inay isku jiraan 35 kilomitir ujeedka markaan weydiinay waxay yiraahdeen waxay markii meel ay dad yimaadaan dhirtii meesha lahayd waa la jarayaa dhisma laga dhiganaya meesha waxay xoolihiiba lagu sii deynayaa oo daaqsin bay galayaan haddana wixii calaf ee soo bixi waxa suurtagaleysa active bilaadanki iyo neefkiiba inay meeshii ka saaraan haddana taa waxa sii raacaysa waa maxay dadkii inay goobtii barkada ka qodaan oo biyo ka samaystaan oo ay ka dhaqaaqi waayaan hadhow tore waxa imanaya in la isku waxa weeyaan la isku wada sidko oo dhinacyada la isku wada qabsado deegaankii marka quruxda badnaa waxa weeyaan biyaha lahaa cibaadka lahaa waxa weeyaan duurjoogta joogtay hal mar wuxuu isku bedelay goob tuula goob wada baca goob wada waxa weeyaan plasticisa goob dhuxush iyo dhirta waxa weeyaan dagaal lagu jiro hadii la doonayo dhul macdanta laga qodo marka deegaankii quruxda badnaa hal mar wuxuu isku bedelay deegaan aad u fudud sidoo kale tana waxa imika aad u soo kordhay cycloniska duufaanada oo markii horeeto aanan waxa weeyaan dadkeenu aqoon aanay u lahayn imka 2018 bishii June waxa dhacday March baan u jeedaa afarteedii waxa soo maray dhulka waxa weeyaan duufaan la yiraahdo Sakar waxa soo martay marka Sanaag Sool waxa weeyaan baaqi awdal iyo Saaxil waxay sababtay deegaan burburinta iyo beera baabiinta iyo waxa weeye waxa nolol ku barakacday waxa weeye dhulku baaba'ay ilaa maantada waxa weeye soo kabala waxa gashay markii ugu dambeysay ay OCHA samaysay waxa weeye daraasad ay sameeysay lacagta gashay waxa lagu qiyaasay 125 milyan oo dollar oo isku jirta in dadka barnoloshoodii la badbaadiyo in dadka deegaanka laga ilaaliyo inay dhuxul iyo waxa aadaan laga qabto in biyo dadkii loo qodo in beerihii wixii burburay la qabto waa maxay waa dhibaatada ugu yareeysatay waa maxay tsunami waxa sii raacay dagaalada ragaadiyay wax weeyaan aan lahayn xadka oo dagaaladiina ay noqdeen kuwo la isku gurguro dhulkaymeedka la adeegsado qadashadii bilaadanku way ku jiraan waxa ku jira sidoo kale khayraadka la isku qabsanayo oo khayraadku markuu yeelaado calaf dagaalada ugu badan ee Soomaalida wax lagu qiyaasay inay badanaaba ka yimaadaan waa maxay waa baadiyadii oo dhawaan xaggan Sanaag waxa jirtay iyadoo Ramadaan lagu jiro waa deegaan laba reerood baa isqabtay isla waxa weeye 5 days ilaa iyo 55 qof oo waxay aan ku weynay nafahooda maxaan kaliya ku weynay waxay ahayd waxa weeye khayraadka yaraaday ee biyihii iyo baadkii sidoo kale waxa yadna soo badanaya markii dhulku calafkii ka tago ee dhulka insha Allah waxa ku horay wax ka yar maartay adu 4 minute aad baad maasantay markii dhulku baadkii ka tago ee dhulkii dihinaa uu qaawismo uu noqdo sabool waxa imanaysa waa maxay dhulkii inay caradii qaato
oo waxa weeye biyihii istaagi waayo marka dhulkii waxa weeyaan degradation baa ku imanaya waa xaaluf noqonaya dhul beereedkii baa imika batay waxa batay khashinkii baa badatay waxyaalahaas oo dhan waxay noqdeen dhibaatooyinka ugu fara badan ee hadda haysta deegaamadeena haddaynu intaa kaga soo gudubno haddaba xalalka ugu macquulsan waxaa jira ilaa 17 approach ama nidaam oo la isku dayo badanaaba in deegaanka sidiisii hore loogu soo celiyo haddaba laba ka mid ah ayaa 5 sano ugu dambeeyey ku jiray pilot ayaa noqday kuwa ugu macquulsan waxa la yidhaahdaa nidaamka FMNR wax kale ma dhigayo waxa weeye waa nidaam yaroo fudud waa nidaam la doonaya deegaankii burburay in sidiisii uu ku soo laabto iyadoona deegaankii dhir cusub aan la keenin iyadoona deegaankii wax cusub aan lagu waxa weeyaan daah qaadin dhir cusub aan lagu beerin kaliya waxa la samaynayaa waxa la xidhayaa dhulkii baa la xidhayaa biyihii baa loo xidhayaa cagtii bini'aadankii iyo cagtii xoolaha laga ilaalinaya kadib dhirtii waxay awood u yeelanaysaa inay sideedii ku soo noqoto iyadoo waa maxay qalab kale aan la gelin hawl kale aan la adeegsan wax kale aan la sameyn nidaamkan kale waa nidaam weli iska yara qadiimiya waxa weeyaan baalkii soil and water conservation baa la dhahaa isaguna waa maxay in xirxir loo sameeyo beerihii dhul daaqsinka waxa weeyaan dhulkaasoo dhan isaguna wuxuu awoodaa inuu biyaha qabto biyihii iyo caradii markay qabsoomaan marka awood waxa loo yeelanayaa si wax artificial ah in dhirta qaarkood loogu beeri karo waa kan nidaamkan FMNR-ka la yidhaaho meeshan waa beerato deegaankaas wuxuu ahaa sidaa u sallaxan wax dhiroo lagu ogaa ma jirin laakiin dadku waxay sheegeen markii horeeto inay goobtan dhir ku ooli jirtay kadib fursaddii waxa la siiyey dadkii deegaanka inay qayb ka qaataan oo waa maxay ay rehabilitationkii conservationistkii ay sameeyaan marka xidhxidhmooyin bay sameeyeen xidhxidhmihii markay sidan noqotay cagtii bini'aadankii iyo cagtii xoolaha laga ilaaliyay fursadna waxa la siiyey geedihii marka muddo kooban oo waxa weeyaan ilaa iyo 1 sano ah deegaankii awood wuxuu u yeeshay inuu sidiisii ku soo noqdo iyadoo markaas ayto cabir la daba istaagsan yahay oo dhirtii la eegayo inta species soo korodhay inta weli maqan meelaha waxa dhirta noocyadii kala yihiin muddo kooban oo waxa weeyaan baalkii sanad iyo 2 bilood goobtii sidan bay ku soo noqotay ilaa iyo wax looga yimiday isoo qabo afkooya jamaame waxa xitaa shaqaalayaal kala duwan oo hay'adaha laga keenay wax weeyaan baydhabo si ay dadku bar u fiirsadaan oo bayraaqo nidaamka waa nidaam macquul ah deegaanka inaan ku badbaadsanno aynu ka wada qayb qaadano intaasaan ku soo koobi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullahi